waalido waxyaabaha maanta aad noogu adkaaday waxaa ka mid ah carruurta inaan isfahano sidaa darteed waxaan rabaa qodobkan inaan ka hadalno maanta maxaynu isku fahmin carruurta maxaase xalka ku jiraa fadlan muuqaaladan saad u heshaan followna dhe like-na dhe walaalaha muslimiinta nala sheer garee bismillah walxamdulillah wasallahuma calaa sayidina maxamedin wabacd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkan horseed 1400 sano ka hor ayaa cali bin abi aalib radiyallahu canhu waardaa wuxuu inagu yidhi carruurtiina ha u korinina sidii laydiisoo koriyo kale waayo waxay ka tirsan yihiin jiil gooni ah waxayna la korayaan xilli gooni ah oo wata duruufo gooni ah bal hadalka oo fiirso carruurtiina ha u korinina sidii laydiisoo koriyo kale maxaa yeelay waxay korayaan xilli gooni ah waxay la korayaan jiil gooni ah waqti gooni ah duruufo khaasa oo wata challenge-kooda iyo caqabadahooda subxaan allah cali bin abi aalib kolkaad ka fikirto cali inta badan wuxuu la joogay rasuulka sala allahu calayhi wasalam in adeerkaana soo koriyeyba dheh rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo cali iyo carruurtii cali xasan iyo xuseen ay ka mid ahaayeen dhaqamadoodu ma kala duwanayn way wada joogeen oo madiinay wada joogeen iyadoo sidaa tahayba haddana cali inagu inala hadlayaan waayo dhaqan badan oo ay ku kala duwanaayeen maba jirinba madiinay wada joogeen internet ma jirin muufiyadan ma jirin waxaan ma jirin annaga carruurtana kala fogeeyey stiil haddana saasoo cali saasuu inoola hadlay innaga haddaanu mujtamaca soomaalida nahay awoowe wuxuu ku soo koray miyi magaalo inuuna weliga arag baa laga yaabaa aabe qayb ka midana magaaluu joogay qaybna wuu soo qaxay haddana qurbuu joogaa ama miyigu isna ku dhashay carruurtiina maanta yurub iyo maraykanka ay ku dhasheen ay ku korayaan waa yurubiyaan waana maraykan gurigii waxaa wada jooga 3 jiil ood odhan diinta islaamka unbaa ka dhexaysan shaqo isku lahayn hadalkaa cali inagu inagu socdaa markaasaa waxaan doonaynaa sidii naloo soo koriyey inaan u korino awoowe ama ayay gurigay joogaan waxay rabaan carruurtan yaryar ee maraykan iyo yurub ku dhalatay inay u koriyaan sidii iyaga loo soo koriyay dhibku meeshaas ka imanaya laba shay baan tilmaamaynaa marka kow ilmaha maanta la korinayo qasab laguma korin karo canaan badanna waxba kuma leh runtii waa loo fiirsaday jacayl iyo wax u sheeg waa la canaanan karaa laakiin jacayl iyo wax u sheeg ha la badiyo talada wax ka sii waan u fiirsaday talada markaad wax ka siiso wax badan baa iska bedela waxaad oran hooyo ama aabbo haddii waalidkay adigu aad ahaan lahayd anna aan maanta carruurtaadii noqon lahaa waxaad aragtay aan kuu sameeyey kula soo qaxay sidan aad mar walba dara u samaysa maxaad igu samayn lahayd wallaahi wax badan bay ka bedeshaa qur-aankuna wayna barayaa fiiri in ilmaha laga talageliyo tallaabada aad qaadayso qur-aanku ina baraya nebi ibraahim calayhi salaam ilaahay baa raya wuxuu ku tusay in uu ma aragtay ismaaciil mindida xaggaa ka saaro wiilkiisu marka la tashanaya miyuu ku qasbaya inuu la tashado may waa ka odhanaya wiilkaygow innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maada tara aabba xali riya waxaa laygu tusay anuu xaggaa mindida kaa saaray what do you think maxaad u malayn fiiri taluu weydiinaya kumana qasbana tallaabadu qaadayo la socodsiinaya kumana qasbana waa ka odhanaya aba tifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min assaabiriin aabe waxaad aragtee lagu tusay ku dhaqaaq waxaan ka helaynaa meesha the moral of the story is wuxuu ka talageliyay tallaabadii uu socday wiilkana uu ku garab istaagay midaasaan rabnaa qodobka kale la sheekayso saaxiib la noqo wallaahi wax badan bay bedeshaa waddamadan maraykankan anagu joogna waxaa la yidhaha the average father aabbaha inta badan 30 daqiiqo la qaata ilmihiisa one-on-one conversation inuu la sheekaysto foolka fool ula sheekaysto wiigoo dhan istimaankoo dhan 30 daqiiqo la sheekaystaa qur-aankuna wuxuu ina barayaa inaad nolosha ilmahaaga qayb ka noqoto cali bin abi aalib wuxuu ina baray inaynu saaxiib la noqono oon tixgelino duruufaha ay wajahayaan iyo waqtiga ay ku jiraan inuu ka duwan yahay kuwaynu ku jirnay ha qasbin wax u sheeg la saaxiib jacayl ku kori allah inagu anfaco muuqaalada sheer garay oo follow iyo like dhasaad heshaan wa sallallahu ala sayidina maxamed ilaahay ubadka inoo badbaadiyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh